halkani waa masjidul latiif oo ku yaala xaafadda suuq bacaad ee degmada Yaaqshiid. masjidka oo dhawaan dib u dhis xooggan lagu sameeyay ayaa waxaa dhisay muxsiniin Soomaaliyeed waxaana dhawaan maamulka masjidka lagu wareejiyay jamaacada Sheekh Daawud Culusow ee hogaamiyo sheekha caalimka ee Soomaaliyeed Sheekh Uthman Xidig. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. maanta oo jimco ah ayaa masjidka la daahfuray iyadoo lagu oogay salaadii jimco ay ugu horeysay tan iyo dib u dhiskiisii waxaana goobjoog ahaa dadka xaafadda iyo qaar ka mid ah xirta iyo mashaayikhda jamaacada. waxaa xusid mudan in salaadii jimcaha kadib xirta jamaacadu masjidka ku oogtay xalqo dikri axmadiye ah gaar ahaan raxmaaniya iyadoo mar qura masjidka uu wada qabsaday kalimaadka tawxiidka ay xirtu qaadayeen. ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم فكن شفيعي إذا ما كنت في جدث وصرت ضيفكم والضيف محترم لولاك ما خلقت شمس ولا قمر ولا سماء ولا لوح ولا قلم وصاحبك فلا أنساهما أبدا. gabagabadii dikriga kadib ayaa shabakada Al-Mutahaabuna Filaahi waxay la hadashay Sheekh Saciid Xuseen Guuleed oo ah sheekha gacanta ku haya masjidka iyo Sheekh Cabdisalaam Sheekh Xasan Sheekh Cabdirasaaq oo labaduba ka mid ah mashaayikhda jamaacada. walaalayaal maanta waa jimco waa bishii mawliidaan ku dhex jirnaa maalin jimco waaye waxaan maanta isugu nimid furitaanka ama jimcada ugu horeysay ee masjidka la yiraahdo Masjidul Latiif oo ku yaala Suuq Bacaad. masjidkaas ayaan maantay jimcada ugu horeysay ku dukanay waxaa isugu yimid dhammaan jamaacada heer Sheekh Daawud Culusow xirta Sheekh Uthman Xidig marka ayagoo ka wakiila sheekha mashaaikhdooda Sheekh Uthman Xidig iyo mashaayikhda kale ku xigta Sheekh Cabdinaasir iyo Sheekh Cabdulxakiim waxay isugu yimideen in masjidkana ay nuuriyaan marka masjidka waa jimco waxaan ku dukanaa salaadii jimco salaadii jimco waxaa nooga horeeyay tacliiq aad u qurux badan oo Sheekh Cabdisalaam Sheekh Xasan oo noo soo jeediyay oo ku saabsan mowduuc toobada ku saabsan oo aad u macaan badan kabacdi khudbada noogu xigsatay salaadii aan dukanay waa ducaysanay kabacdi waxaan akhrinay xalqad dikriya oo gaaban haddana waa gabagabaynay waa Suuq Bacaad waa jamaacada Sheekh Uthman Xidig إلهي ما هذا إسكاله إلهي نسوى فجي مسجد كان أو مساجد إلهي كمذا أو ليرى مجلس مسجد اللطيف حرتي ضمان جماعة Sheekh Uthman Xidig أيام مشان اسكت مد
waxayna ka soo qayb galeen masjidka furitaankiisii waxayna ku mahadsan yihiin insha allahu tacaala sidii loo yaqiinay sheekha wadiifadiisii waxaa waaye in masaajidada lagu akhriyo lagu tarbiyo jilalka hadda soo barbaarayo tacliimta islaamka in lagu xambaaro kaasoo inuu ka mid noqon doona insha allahu tacaala hadafka ugu weyn waa midkaas isku imaanta keena midkaas uu ahaay waana soo dhaweynaynaa waxaan halkan ugu mahad celinaynaa dadkii ka qayb qaatay masjidkan dhismihiisii dhaqaalahoodii iyo fikirkoodii waqtigooda ku bixiyeen waan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay jazaakum allahu khayran gaar ahaan ehelka iyo sheekhi haddaay faatixada loo maray ehelkiisii muraadooda allah sahlo insha allahu tacaala waxaa kaloo mahadsan sheekh saciid khayr allah siiyo oo intaanu arday isku timid oo xirtiisa ilaahay ka dhigay oo dacwada ilaahay u taagan mar walba oo waqtigiisa dhan u horay inuu diinta islaamka ku bixiyay waxaan leenahay sheekhina sheekh saciid cumrigiisa allah noo dheeray allah noo xifdiyo sidoo kale waxay shabakadu la hadashay sheekh cabdilkariim maxamed macalin axmed oo ka mid ah guddigii gacanta ku hayay dhismaha masjidka iyo qaar ka mid ah ardayda daalibul cilmiga ah ee masjidka ku baran doonta culumta kala duwan ee shareecada islaamka waxaan aad uga mahadnaqayaa culamadii maartay isugu timid masaajidka Masjidul Latiif أنا أقول ما حد نقع يعني فريتان كمساجد كافتتاح وياهي مساجد كان عدي عن كور رمو واحد يسي أبهي محمد معنا يدور كديبي سجى يعني كشقي وما تقانا مسابق كده وما تقانا علماء واوين وما تقانا شيء عبدي مع النور وكمية أيام ما تقانا كل ذالين مركا وحواي مساجد كمراحل بدل صوم مري أساعتي ودب أيا لو ما تقانا لو جبيه سنة كوديس أيا للجبيه oo la dumiyay haddana bisha Oktoobar waxay tahay 20 iyo Maarch 9 ayaa bariga la furay umada masaajidka loo dhiibana Sheekh Cusmaan Xidig waaye iyo Sheekh Saciid ayaan u dhiibay aniga si wax loogu barto runtii maanta waxaanu joognaa iftitaaxii Masjidul Latiif suqbacaad ku yilay degmada Yaaqshiid runtii masaajidkan wuxuu soo maray maraaxil kala duwan ilaa 8 oo la dhisay ilaa hadda masaajidkan waxa uu soo maray maraaxil kala duwan maanta ayaa mar kale dib loo dayactiray oo la furayaa runaantii dhismihiisa waxay qaadatay muddo 10 bilood ku dhawaad ah maanta ayaana la furay insha Allah taala waxaan meeshaan maanta aan ku qabanaynaa jamaacada Sheekh Ismaan Xidig hadaanu nahay iftitaaxii masjidkan waxaan rajaynayaa insha Allah taala in hawlihii loo dhisay oo ah in Ilaahay lagu caabudo iyo in dalabatul cilmiga ay cilmiga ku barato ay ka socon doonaan hadii Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo idmo waxaan halkaan ugu mahad celinayaa dhamaan intii ka qayb qaadatay dhismihiisa ay ugu horeeyaan Hershi Maxamed iyo intii ka gacan siisay Ilaahay abaal ha ka siiyo runtii waa Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaalaha cibaadooyinka lagu dhawaado cibaadooyinka ugu fiican ayuu kamid tahay in dhismo masaajid la dhiso waxaana halkaan uga soo jeedinayaa hambalyo oo ah in Ilaahay subhanahu wa ta'ala idin waafajiyay magacaygu waa Cabdimaalik Saciid oo kamid ah xirta Sheekh Saciid run ahaantii aad aan ugu faraxsanahay masaajidkan iftitaaxiisa inaan ka qayb qaadano masaajidkan run ahaantii wuxuu soo maray maraaxilo aad u fara badan ilaa dhowr iyo 10 bilood la dhisay kadib maanta oo jumcaha waxaan joognaa iftitaaxiisa waxaan halkan ugu hambalyeeynaa dhammaan ummadda muslimiinta ah waxaan si khaas ah ugu hambalyeeynaa Ilaahayna uga tugeynaa in uu ajir fara badan ka siiyo intii ka qayb qaadatay dhismihiisa magacayga waa Maxamed Mukhtaar Saciid waxaan kamid ahaa dalabada ku barato cilmiga masaajidkan khaasatan oo mudarriska ka yahay sheekhayna jaliilka Sheekh Saciid Xuseen Guuleed isagana kamid ah jamaacatu Sheekh Daawud Culisow oo sheekhooda sheekhayna murabbiga oo yahay Sheekh Ismaan Xidig waxa ma haddaas iskale Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo suurtageliyay inaan jumcadii ku dukanno dabadeedna aan ku barakayno xalaqad dikriya Ilaahay subhanahu wa ta'ala inna munkariyay inaan gaarno gabagabadii maalinkayna ayaa ma had iskale waxaan mahad uga celihaynaa cid allaale cidii inoo suurtagelisay ee juhdiga ku bixisay inaan makaankan aad ka loo ziineeyay oo loo qurxiyay inaan cilmiga aan ku baranno oo ku akhrisano ay ugu horeeyaan ehelkii masaajidkan waqfay iyo intii kala qayb qaadatay waxaan kale todo mahad uga celinaynaa culumadayni nagu soo tarbiyeysay welina nagu tarbiyayso diinta islaamka inaan baranno kuna amal falno waxaan mahad uga celinayaa shabakada iyadana ka qayb qaadatay faafinta khayraadka diiniga oo
habeen iyo maalin u taagan sida khayrka ummadda islaamka oo aysan u suurtagelin inay makaankan oo kaleetood ay soo xaadirto ay gaarsiiso. Masjidul Latiif ayaa ka mid noqon doona boqolaalka masjid ee hoostaga jamaacada Sheekh Daawud Culusow oo ka mid ah jamaacadka ugu waaweyn dalka. Cabdullaahi Xasan Axmed, shabakada caalamiga Al-Mutaxaabuuna Filaahi, magaalada Muqdisho.